تجين 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 ينالو كلا تجين كالكيدين عند ميني ينالو كلا تجين 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 ينالو كلا تجين. I am Tahir, Chief Surveyor from the NBHH, and now today we are going to open the 12-kilometer road. Our program was that we will open the 20-kilometer for you today, but unfortunately there is some problems, the rain, and before the rain there is some companies, local companies, and they not deliver the work very well. So after that we took the charge from them, and we did the work ourselves. That's why we come late, and next stage inshallah we will do fast, because here we are also facing the problem because we bring the material from the Barbara site, and when we will close to the Barbara site, after that we can deliver soon. يا دمان وفتيجا ومدحونه هجامنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحونا ما تحلو شغنا إن نفرنا قيب خميدا مشروع بربرة كوريدور والله 108 كيلومتر سدو شيء إنجنير داهر هذا نير شرحنا مدحونا وضدني واحد كده وانت وددينا هراء ديساين كهراء وحال لحتم بوها تاني إن شاء الله وحنا قندون تا أفرتن تن يوحي كبادنا إني حمشوا سيدو كلا ولا بلاري وها بالعيد هراء 6.5 إما كانوا حوي أن مركز القدرة مع شول ريسك و 11.3 بالعيد مركارنتي وحرجين إن إن شاء الله أي نصب حد أنتم مستقبل كدو وضاع إن كرئيسان دونه قدو شيء إنجنيركو رنتي واحد شراء عقبات شري واحد شعلين 20 كيلومترين فران لكن الدروفة كوريميد أو كوي كتهاي روبكا لبا كتهاي ماتيريال لقولي سايال كان أنت أقول بدون حلقة سوق هذا أنت نقول ده 9 كيلومتر يشير دعاربرق يبربرك تدا لقى سوق هذا دقة حلقة سماها دقة عداين ونقاني وباسلت أم يجبرو تازمر كوا خاصة بس أنا مسافر در علابتنا للسوق هذا sidoo kale wuxuu sheegay in xogaa xaq caqabada kaga timid local contractors Somaliland iyo material ko inta badan qalabkoona u diyaarsanay markii dambe ay keeneen runtii waxaan rajeynaynaa imka caqabadaha badankooda waa la xalilay waxa kale inoo soo gudbiyeen bishii labaad programkooda markii hore wuxuu ahaa May 2021 bisha shanaad in shaqada dhamaato duruufaha awood 4 bilood bay dib ugu dareen bishan September 2021 2021 bisha sagaalaad qorshuhu yahay inuu dhamaado ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in hawshaasi noo fusho inaga xilkayna sarwa dadaalun waxaan jecelahay maanta laga bilaabo 12 kilomitir waxay u furan yihiin in la isticmaalo kolba waxaan jecelahay waxaan qorshuhu ahaa marka hore ilaa Obarqad la Hargeysa in la furo Obarqad Dacarbulqna mar laga dhigo Dacarbulqii berberena mar laga dhigo laakiin nasiib darro duruufaati yimid awoodeed ayaa dhilaygaas ku yimid waxaan jecelahay insha Allah inaynu ka gaashaamano waxaan rajeynayaa maanta mashaakilka ay sheegeen badankooda inaynu xalinay waa kulli waxaan jecelahay inta aynu ku soo gabagabeeyo adigana kugu soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa mahadle wasaaraddan fideedka iyo gaadiidka aad baan ugu mahadnaqaynaa waana bogaadinaynaa wadadan iyo taa ceer gaabada oo la wado muhiim ah way gacanta ku hayaan dadaal badan iyo shaqadii oo barteen iyo isla qabsi baa ka muuqda wadooyin badan oo kalena way idin hareen dalka wadooyinkiisu waa badan yihiin dalkeenuna wuxuu qaybsan yahay guban iyo oogo iyo xeb mid waliba cimilo gaar ay leedahay caalamkan ilbaxay ee elektroniga ku shaqaynayana gaadiidka iyo isgaarsiintu waa ka kow nolosha marka waxaynu ka mid nahay dalalka aad iyo aad ugu dambeeya xagga wadooyinka iyo communicationka xilka idin saarana waxa weeye inaad hawshiina la bilaabtaan oo dadejisaan inta gacanta ku haysaan kana fikirtaan ta ka badan ee idin sugaysa ee la doonayo in hore loo qabto marka waxaan aad iyo aad ku mahadnaqaynaa hawsha soo qabateen waxaanu mahadnaqaynaa qoladan imaaraadka inaga caawisay oo aynu iyagana ka codsanayna hawsha noo dadejiyaan wadadan way jiitantay ilaa bilowgeedii mashruucii kolba meel dhowr sano maraysaa
marka waxaan iyagana ka codsanayaa iyagoo ku mahadsan kaalmada ay naga caawiyeen jidadka iyo kuwa kaleba inay hawsha dedejiyaan wasaarad ahaan mar labada idin bogaadinayna hambaliyo imika waxay ka gudubtay waktigii tababarra isla qabsashada shaqa aqoonta duruufaha waxaa laydinka rabaa wax soo saar xoog leh ilaa labada waddo hore u dhammaysaan sanadka dambe insha allah dhexdiisa kuwii kala bilowda la sugaayay aad iyo aad baa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu